ku garaacay waxaan ku iri waa qofta soo wacday tiri ii kaali habeen ninkii baa game ciyaarayo iga suwaayay waa u tegey gurigeeda gadaashiisa gurigu gadaal buu leeyahay gaarigaa dhigtaa telefoonaan ku hadlayo meelaha hadhow soo dhiga duuba anaga YouTube ma geenayno codkaan ka hadlayaa duuba codka aan ka hadlayaa halka uu kii maxaa la oran jiray in fiimo ftamaal uu meelaha wareejinayaan raba inaan ka hadlee marka duubta meelaha soo dhiga codkaas aan raba inaan ka hadlo oo uu soo dhigay ninkii la oran jiray ftamaal uu meelaha wareejinayo duubta waxaan idin sheegayaa Soomaaliyeey codka aragteen oo anigana aan arkay oo social media wareegaya oo in fiimo ftamaal uu Facebook iyo TikTok soo dhigay codka waxa iga duubay in fiima iga duubay ftamaal baa iga duubay ninka dhaqankiisa waa taqaaniin nin waxa la yiri hooyadii ka guurayso dohdii uma nagaado waa ninkii xaaskiisa duubayay nin aan saaxiib ba ahayn oo wada hadallo oo hadba YouTube-ka iyo xiga soo weydiiyay buu ahaa niman dhalinyaro iska sheekaysanaya oo sheeko u dhiibtay oo taariikhooyin dhacay ka hadlaya baan ahayn wixii buu iga duubay wixii buu soo jarjaray annagoo taariikhooyin dad ku dhacay iyo waxyaabo ka hadleena in general ah wixii buu duubay wixii buu maanta halka soo dhigay isagoo muhiimadiisu tahay inuu aniga igu sacadilo oo 200 oo wax oo kale oo codada uu jarjaray uu ku soo daray oo mar aan xataa maalin aan halka intaan aan ka iri in fiimo oo libaaxii soo diray aan waree dhawaa ceebobay oday ceebobay baa xaal baan ku siiyay buu xataa wuxuu ka dhigay inaan codkii qaranayo leeyahay waa ceebobay buu ka dhigay gabdhuu soo saaray aan giiman wada ciyaari jirnay oo uu hadda kornacaayay oo beesha hawiye ka soo jeeda oo sharaf naga mudan buu codkii soo saaray si dadku ay gabdhaha u moodaan sida aragteen waxa oo dhan wuxuu wiilkaas ka xun yahay game-ka aan ciyaarayo waa risq maanac wuxuu ka xun yahay habeen dhaweyto oo aan dood dhexdhexaadinayay buu doodii soo dalbaday dadkii wax falanqeynayay inuu ku soo biiro damcay dadkoo dhan baa u jeeday waa ka qaban waayay sababtoo dad wax gala baa faylka ku jiray in fiimo markuu dooda imanayo dood siyaasad Soomaaliyeed looga hadlayo muxuu uga hadlayaa ma fiimo waxa way cawradoodu ka sheekeynaya waxaan muxuu ka hadlayaa muxuu ka sheekeynaya mise qabiil baa la caayaya mise ma jirteena lagu naxaya wallahi oo billahi waa soo qaban waayay hal saac uu taagnaa commentiga lagu soo qorayay waxba magaciisana ma xusin warood iga tag baan ku yiri xog soo qaban mayay intii buu ka xumaaday codad buu isku soo jarjaray halku soo dhigay marka nin xaaskiisa cawradeeda halka soo dhigayay wardaheeda aniga ii nagaan mayo game-kayga buu wuxuu rabaa inuu dadka iga hor keeno waxaan arkay calanka Soomaaliland anoo sita isagoo keenay waxaan arkay isagoo maaragtay anoo dawladda Puntland hadda ka hor maaragtay maagmaagay uu keenay waxaan leeyahay warniyow Somaliland de waa dad Soomaaliyeed weeye maalinta ay maaragtay 18 May u dabaaldegayaan dad badan oo Soomaaliyeed waa la isaga hambaliyaa dadka godob badan noo tisanayaan marka niyadan ugu dhisaa aanu marka 18 May la gaaro niyadan ugu dhisaa waxa isdhaha balinay maartay halka qubuuraha iyo waxa ay ka mashquulaan niyadan ugu dhisaa nimanka Puntland oo aan leedahay ma jirteen u ciyaarin oo aan leedahay keenayso anoo dawladda Puntland dhaliilaya wari Puntland waxbaan wada dhisanay waa dadaan walaalanahay haddaan leeyahay hadhow baan oranayaa haddaayaan lahaa ma jirteeno war walaalayaal kuraasta yaa hanaga qadanina intaas aanu dhahay isimadooda macaayo meeytidooda macaayo dad walaalahay weeye inta dimuqraadiyadda dad wax wada dhistay baan nahay marka madaxweynaha meesha fadhiya waxa weeye waa la dhaliilaa taas waa la ogol yahay sidaada laakiin laangaab cuqdad qaba oo maaragtay iisoo qorqoladiisa iisoo qora warqoladiisa iisoo qora muxuu ahaa masacagale warqoladiisa iisoo qora masakiciso war iisoo qora walaalayaal marka aanu meeytidoodana cuqdadna uma qabo dawladda waa dhaliilaa nacayb isira iguma jiro dadaan wada dhalanay masagud wallahi oo billahi oo tallahi isaga igu horeeyo qof aan ka arko isagaana igu damayn doona de xageeba joogaanba wallahi waa qofki igu hor khadar iyo isaga iyo qoladiisana isagaan horbartay isagana fahiimaan ku bartay
marka carada oo dhan waxay ka kacday ninka saaxiibaan ahayn waa dhexdaasa isbaranay game waa u ciyaaray waa la kala kiciyay wiilka caradiisa maalin dhowto oo islaanta codkeeda halka keenayay baa reaction ka bixiyay oo waxaan war iimaanka Allah ka qaade war gabadhana cawradeeda wareejinayso war jooji intii isoo ka xanaaqsan buu haddana doodi soo qabsaday habeenkii dhowto oo teero iyo boos aan u qabanayo oo farmaajo iyo xasan sheekh maaragtay keedalka u ron la lahaa maxaa dooda bal dadka ilaha soo qabo commentiga isoo qabo oo maxaa ka hadlaysaa meesha macawradii fiimaa looga hadlayay maxaa looga hadlayay macnaa meesha macawrad duubaa looga hadlayay meesha ma jeerta nacay baa yaalay ma meesha ma meyti baa lagu caayay maya adeer siyaasad baa meesha looga hadlayay siyaasad baa meesha looga hadlayay marka maxaa noo keeni lahayd fiima codka ayaa ma noo keeni lahayd Soomaaliya ninkaasa codka iga duubay wallaahi isaga iga duubay codkaasina wuxuu ahaa taariikhan ka hadlaynay waxaa hebel waa halkaas la yiri halkaas waxa ka dhaceen waana garanaysaan nin hooyadii ninka xaaskiisa duubayay war mashiinu u nagaanayay waxa kale oo idin sheegaya codad badan buu iga hayaa mudda wala hadleynay codadku iga hayaa dad iska sheekaysanayna ahayde codad buu iga hayaa waxa arkay isagoo halka ku soo qoraya codadka aashiina ka hayo waxa weeye waa qayb ba u soo deynaya wariyaa aniga ma waxa ay haysataa cawradii fiimo gooben jirta ay haysataa anu ma cawraan leeyahay wasakh baa tahay waxa hayso hal mar soo wada fasax soo wada dhig nin in culay la dhaho aan dhalaya bad ceeb qaban maxaa ku ira bad lagu ma ka horaan u iri dhagax taabasho iyo tuujin waa isu kaymid maangaab daciifa waxba kala aqoon baa tahay inta nooshayna nabar baa noqonaa kugu bahalkaysan dulli baa tahay ninkii halka xaaskiisa cawradeeda keenayay oo maxaan ku yiraahdaayay codkeeda keenayay iyadoo la xabiibi waa ku jecelahay ku sasabanaysa keenayay iyadoo le waa ku baahanay sariirtan keenayay saaranahay keenayay guriga intuu ugu dhaco soo duubayay iyadoo qaawan halka soo dhigayay naasaheeda nala wadaagayay horaadadeeda kaasaa tahay dulli baa tahay naagan qaba lama arko caruuraan dhalay lama arko maxaan ku yiraahdaa noloshiisu nina isugu toosan tahay baan ahay Yurub xiniyahayga shilinkayga labadayda lugood baa ku iri habari iba keenin hooyadii fuule miihi halka inta Afrika layguma biili jirin YouTube ka adeer kugu jirtaa every second day gabadhi halkaas ka ooyaysa 5 sano biilanaysi hatta bil joogin ka tagtay maxaa ugu abaal gudday codkeeda muuqaaladeeda waxeeda ina baahiso maanta waxa tirshiina culay baa cod ka haya taxana qayb baa u soo deynaya warshiina culay duf Allah ku badee macawradii fiima u qaatay hadda ku soo duubaya luuqa kuwa kale kugu soo diraya soo dhig adeer soo dhig maxaa tir isagoo naag fuushan bahaya war hadana naag fuul maadana fuul laha dulli waa dulli war ana fuul hadana naag fuulin marka Soomaaliyay ninka aan saaxiib ka moodayay oo masiibada yaa adeerayaal codiga duubay waxyaabo xambaan iska galay waa iska garanaysaa dhalinyaro wada qisooyin dadku dhacay baa ka sheekeynay waa kaasaya codkii wali tusaale waxa uu leeyahay codad kale war ilaa maalintan isnaqaanay waxa ku wada hadal laba duubi jirtay heede wixii ma haysaa ma kaydka kugu jiraan yaa sooda adeer sooda ninkan waxa waaye waa fiimaha moodin gabadhii miskiinta ahayd kugu soo tiir iyo tacab beeshay yaa adigu maxaa u duuban weyd mid qorayo oo maxaan duubaa anu ma qof maalintii 2,000 qof ay soo duubay daciif wax duubay anu ma daciif faanahay see wuxuu duubaa anigu maxaan ka duubaa ma qof aanu duubi karaa ilaahay inuu ku dhaarshay ma qof aanu duubi karaa warniyow anu dhaqanka malihi nin laan dheera isku kalsoon maxaa ku aan ahay waxba ma duubo marka isaga inta wax duubaya ninka xaaskiisa duubayay halka keenayay hadda amaanu ii nagaan miyo ninkaasina waa idin sheegay wuxuu ka carooday maalin dhaweyto oo aan reaction ka bixiyo oo iri war gabadha tan xaaskaaga oo maalin walba aad duubayso oo xataa inta ku soo dhooftay
كعرضي هدنا ugu dartay ina caan ka dhigtay oo gabadhii ka soo horbaxday aba leedahay ha dafihimo islaantii khadar ka cararay oo maxaa ku depression ka